bismi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal meel walba waa joogtaan kusoo dhowaada shabakada wararka ee midnimo online xiliyadan oo kale waxaad daawan doontaan hadduu ay barnaali ka noqdo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo arrimaha soomaaliya. wararka aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona maxay dowladda qatar ka damacsan tahay dalka soomaaliya sanadka 2040 maxay tahay sababta ciidamo gaaraya ilaa 200 oo askari looga fariisiyey ka mid ahaanshaha ciidanka nabad sugidda qaranka ee nisa. doorashada galmudug xiisada ka taagan magaalada cadaado goorta ay dhacayso doorashada guddoonka baarlamaanka ee galmudug ayaa daawan doontaan. dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay in ciidamo ay u dirayso dalka koonfurta suudaan, qodobada iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan, balse markaan waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu waaweyn arrimaha soomaaliya. waxaa soo baxaya warar sheegaya in hay-adda nisa ay shaqada ay ka ceerisay ciidamo fara badan oo sanado badan usoo halgamayay dalka soomaaliya. in la eriyo ciidamadan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay xildhibaan macalin cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya, waxaana uu tilmaamay inaan waxba looga soo qaadin halgankoodii sida uu sheegay. waxaa kaloo uu sheegay xildhibaanku in macluumaad uu u helay in uu muujinayo in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ilaa 200 oo askari oo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka ka tirsanaa siduu hadalka u dhigay ee shaqada ay ka joojisay. waxa uu cod dheer ku sheegay in ciidamadan laga eriyey ay shaqo la-aan ay ku hayso magaalada muqdisho, taasina beddelkeeda ay suurtagal tahay inay ka qayb qaataan amni darrada ka jirta magaalada siduu hadalka u dhigay xildhibaanka. waxaa kaloo uu dalbaday in arrimahaasi wax badan laga qabto, waxaana uu sheegay inay tahay arrin aad u foolxun. waxa uu yidhi waa dareemi kartaan dhibta ay leedahay in la eriyo askari sirdoona, waxaana ku filan keliya in xogta uu la wadaaga cadowga, ayuu yidhi xildhibaankan oo baarlamaanka dhexdiisa ka hadlayay. dowladda qatar waxa ay soomaaliya ka damacsan tahay horumaro badan in la gaaro sanadka 2040. dowladda qatar waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka taageeraysay higsiga 2040. kulan dhex maray wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda qatar saalax bin maxamed al nabiit iyo sidoo kale dhigiisa dalka soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa waxaa looga hadlay iskaashiga labada dal iyo sidoo kale yoolka ku aadan higsiga 2040 oo dowladda soomaaliya ay doonayso in soomaaliya ay horumar iyo barwaaqo ay gaarto sanadkaas. wasiirka qorsheynta ee dalka qatar ayaa dhigiisa soomaaliya ku wareejiyay hanaanka higsiga qatar ee 2030 iyo waxyaabaha ka qabsoomay ilaa iyo hadda. kulan dhex maray labada wasiir ayaana lagu sheegay in dowladda qatar ay kaalin weyn ka qaadan doonto sidii horumar soomaaliya u gaari lahayd sanadka 2040. dowladda qatar waxaa kaloo ay ballan qaaday in soomaaliya ay ka taageerayso dhammaan dhinacyada arrimaha bulshada, ammaanka iyo horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay. wasiir jamaal ayaa dowladda qatar uga mahad celiyey xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya iyo kaalinta ay ku leedahay horumarinta ka socota dalka soomaaliya. markii ugu horreysana dowladda soomaaliya waxay ka hadashay ciidamo la sheegay in loo dirayo dalka koonfurta suudaan. dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay in ciidamo ay u dirto dalka koonfurta suudaan si ay gacan kaga geystaan ammaanka una xoojiyaan nabadda dalkaasi koonfurta suudaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan jaabiri oo warbaahinta muqdisho kula hadlayay waxa uu sheegay in dalkiisa uusan ka labalabeyneynin in ciidamo uu u diro dalka koonfurta suudaan waa dalka soomaaliya. waxauu yidhi waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay isweydiiyaan sida ay suurtagal ku tahay in dalka soomaaliya uu kasoo kabanaya dagaalla sokeeya oo ciidamo u diro dal kale oo dagaalla ay ka jiraan. waxa uu tusaale usoo qaatay burundi oo uu sheegay in soomaaliya ciidamo ay usoo dirtay xilli dagaalla adag dalkaasi ka socdeen. igaad waxa ay doonaysaa in ciidamo ka socda dalalka suudaan, uganda, soomaaliya, jabuuti in loo diro dalkaasi koonfurta suudaan si ay nabadda qayb kaga noqdaan. sawirka igaad waxa uu bixinayaa buu yidhi inuu muujisay inay xasiisay dalka soomaaliya oo nabad iyo barwaaqa la gaadhay. ugu dambeyntiina kulan ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka maamulka galmudug waxa ay sheegeen in 11 xubnood ay soo xuleen kuwaas oo qayb ka noqonaya jadwalka doorashada guddoonka baarlamaanka ee galmudug. guddiga waxa uu sheegay inay socoto qabanqaabada doorashada ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. xogayaha guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka ee galmudug xildhibaan mire ayaa warbaahinta u aqriyay sida ay wax u dhacayaan. jadwalka doorashada gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. qodobka koowaad, muddada maalmaha arji qabashada waa 3 maalmood. qabashada codsiyada xubnaha musharaxiinta oo bilaabanaysa maalinta taariikhdu ay tahay 20 bisha 9 2018 oo ah maalin khamiisa kuna eg maalinta sabtiga ah oo ay taariikhdu tahay 22 bisha 9 2018. saacadaha qabashada codsiyada musharaxiinta waxay ka bilaabanaysaa 9 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo maalin walba 3 maalmood oo soo sheegnay.
xogayaha guddiga doorashada gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaan Mire ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 23 bishan xildhibaanada ay su'aalo weydiin doonaan musharaxiinta halka hadal jeedinta ay noqon doonto 24 bishan oo ku beegan maalinta Isniinta ah. ugu dambeyn waxa uu sheegay in doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ay dhici doonto 25 bishan maalinta Talaadada ah ee soo socota. qodobka afraad talaado oo ah taariikhda marka ay tahay 25 bisha 9 2018 doorashada gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug iyo dhaarinta gudoomiyaha baarlamaanka helay codka kalsoonida xubnaha baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug. daawadayaal waa naga intaa qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka iyo guud ahaan Soomaaliya anigoo Maxamed Ciise ayaa idin la socodsiinaya ku taxnaa midnimo online haddii aad ku cusubtahay fadlan subscribe dheh si aad mar walba u hesho wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda.